kulan wacan oo wanaagsan asxaabta sharafta leh ee ku xiran janalka Soomaaliyeed ku soo dhawaada mowduuceennii aan hore uga soo hadalnay xalqadiisii koowaad ee ku saabsanaa taariikhda dalka Liberia. Fadlan kanaalka dadku cusub tahay subscribe saar, sidoo kale waxaan ka codsanayaa muuqaalka like saartid si ay noogu noqoto dhiirigelin. waxaan hore u soo sheegnay in dalka Mareykanka uu aasaasay dalka Liberia. Xitaa calanka Liberia waa mid aad u shabaha calanka Mareykanka. 11 xariiqimood iyo cadaanka iyo gaduudka iskugu jira waxay u taagan yihiin shakhsiyaadka saxiixay kuna dhawaaqay madax-bannaanida buuxda ee Liberia. Xiddigtu waxay u taagan tahay in Liberia tahay jamhuuriyaddii ugu horeysay ee Afrikaan ee madax-bannaanideeda hesha. Midabka buluugga ahna wuxuu u taagan yahay qaaradda Afrika. Liberia waxay dagaaladii waaweynaa ee dunida la safnayd oo ay taageeraysay dalka Mareykanka. Marka aan eegno taariikhda madow ee dalka Liberia, waa dal soo maray dagaalo eeliya ama dagaalo sokeeye oo ay ku naf waayeen ilaa 250,000 oo ruux. Waa laba dagaal oo sokeeye oo socday intii u dhaxaysay 1989 ilaa 2003. Jamhad uu hogaaminayay Samuel Doe ayaa 1980 afgambiday dowladdii la doortay ee dalka, waxaana meel fagaara lagu dilay madaxweynihii la afgambiyay ee William R. Tobert iyo 13 ka mid ah kaaliyaashiisa. Samuel Doe oo dalka afgambi kula wareegay isagoo laba xidigla ah oo cadaadis kala kulmay dowladda Mareykanka, wuxuuna ugu dambeyn ogolaaday inuu qabto doorasho 1985. Haddaba doorashadaas ayaa lagu tilmaamay mid lagu shubtay, waxaana ku soo baxay Samuel Doe. 1980 Charles Taylor oo ahaa wasiir hore ayaa bilaabay inuu aado dalka Ivory Coast ama xeebta Velmarodiga si uu u soo aasaaso jamhad ka dhan ah xukunka Samuel Doe. Jamhadda uu aasaasay ee NBFL waxaa ka xubsiigatay jamhad kale oo uu hogaaminayay Prince Johnson, waana jamhadda 1990 qabsatay caasimadda dalkan Monrovia, waxayna gacanta ku dhigtay oo si fool xun u dishay madaxweynihii dalkan afgambiga kula wareegay 1980 ee Samuel Doe. Wadahadallo nabadeed iyo faragelino shisheeye kadib, waxaa dagaalkii koowaad ee Liberia uu soo dhammaaday sanadkii 1997, waxaana madaxweynihii ugu horeeyay madaxweynihii Liberia markaasi noqday Charles Taylor. Haddaba 1999 waxaa mar labaad qarxay dagaal kale oo sokeeye kadib markii kooxdii fallaagada ee LURD ay taageeraysay dowladda Geri ay la wareegeen waqooyiga dalkan, waxaana bilowgii 2003 koonfurta dalkan la wareegay fallaaga kale oo magaceeda loo soo gaaminayay MODEL. Fallaagadii waqooyi ee LURD waxay hareereysay caasimadda Monrovia, waxayna duqeyn ba'an u geysatay caasimadda, taasoo sababtay dhimashada 10 ruux. Bishii sideedaad ee sanadkii 2003 waxaa la saxiixay heshiiskii Comprehensive Peace Agreement, kaasoo dhinacyadu isla ogolaadeen in colaadda la soo afjaro dalkuna yeesho dowlad ku meel gaar ah, taasoo u jeedisa nidaam dimuqraadi ah. Waxaana sidoo kale sanadkii 2012 xabsi 50 sano ah lagu xukumay Charles Taylor, kaasoo ah madaxweynihii dalkan intii uu socday dagaalkii labaad. Sidoo kale wuxuu lug ku lahaa dagaalkii koowaad. Sanadkii 2005 waxaa la qabtay doorasho, taasoo madaxweyne dalka u noqotay Ellen Johnson Sirleaf, waxayna noqotay haweeneydii ugu horeysay ee dal Afrika madaxweyne ka noqota. Haweeneydan ayaa mar kale dib loo doortay sanadkii 2011, waxaana isla markaas ay ku guuleysatay abaalmarinta Nobel Peace Prize. Ugu dambeyn waxay kursiga ka degtay sanadkii 2018, waxaana xilkaas kala wareegay madaxweynaha haatan Liberia xukumaya ee George Weah. Madaxweyne Weah waa shakhsi ay si weyn u yaqaanaan bahda kubadda cagtu, waxaana 1995 ku guuleystay isla markaana noqday Afrikaankii ugu horeeyay ee hanta ama ku guuleysta abaalmarinta Ballon d'Or. mahadsanidin. Muuqaalkeennina qaybtii labaad intaan ay ku eg tahay.